wiilkaygiiyow haddii aad damacday inaad guursato iska ilaali toddobada nooc oo dumarka ka mid ah. Okay. toddoba dabeecadood gabdhaha leh buu ka digayaa. صح تضبط الماما طبعا. cajiib. Okay. u dambeydana waa xanaana midda ololka badan nin aan qabin laga yaabo inuu dhintay u ololeeda mar walba inay heshay rabtaa. طبعا kan qabana kan qabo ma ogawa taagashisa yahu si shargaray muuqaalka meel fog gaarsiiyo haddii aad ka heshaan xigmadoodii soo jiitay maalin basaas ay ku keenayaan nin xigmad leh iyo sheekh ay ka da'aysay khayr Allah. nin dhalinyaro oo damcay inuu guursado ayaa wuxuu u tagay nin xakiima kadibna wuxuu yiri adeerow ila tali waxaan rabaa inaan guursado. ninka xakiimka ahaa ayaa yiri wiilkaygiiyow haddii aad niyeysatay inaad guursato ka digtoonow ama iska ilaali toddobada nooc oo haweenka ka mid ah toddobada nooc oo dumarka ka mid ah. waa la gartay wiilkaygiiyow haddii aad damacday inaad guursato iska ilaali toddobada nooc oo dumarka ka mid ah. Okay. toddoba dabeecadood gabdhaha leh buu ka digayaa. صح تضبط الماما طبعا. cajiib. Okay. toddobadaas nooc wuu tiriyey wuu u tilmaamay wuuna u caddeeyey wuxuu yiri midda ugu horeyda waa annaana. midda ugu horeysa annaana waa midda taaha badan. annaana midda koowaad wuxuu ku tilmaamay annaana midda aniinka badan ama taaha badan. hadda waad garanaysaan mar haddii lagu yiri gabar taah badan waa gabar iska jiifta ee aan caafimaadinba ma raysato mar walba waxay leedahay meel baa jaban subax walba ninkeeda dhakhtar buu usii wada wuxuu fici uga haray naag aan jiranayn oo aan meel la-ayn buu subax walba isbitaal geynaya waxba ma qabtaa laleeyahay waxba ma qabtaa laleeyahay quraansaar igey leed markuu ka keeno marka meel kale kasoo waxay leedahay habar wax boqorisa igey waa loo geynaya maantaas laga tago mar cilaaji u saare oo mar waxay u saa isbitaal oo mar waxay leedahay dhaqaatiir cusub baa timid aan ila soo fiiri waxa weeye aniga ima rabtid ima daaweynaysid anigu sidaba inaan dhintaa ii hartay waa naag iyadoo kaa xoog badan karfanteedii soo gadanaysa oo wadaadadii yaasiimilaha keensanaysa guriga u joogaan. midda labaad waa manaana mid mana sheegasho badan. manaana waad garanaysaan waa gabar gallad sheegasho badan. hadda kahor nin baa wuxuu ugu yidhi xaaskaygaa waxay ii keentay buu yidhi intay magaalo aaday oo walaalaheed soo dhibaadiyeen bay waxay ii keentay buu ugu yidhi macawis iyo go iyo waxbay ii keentay. sax ma kaa qaadanayaan iribow طبعا صح ma kaa qaadanayo baan iribow صح ilaa walaalaheed iyo dadkeeda gogol intay iisoo dhigteen layidhi maxaad gabadha uga qaadan weyso ma sayrtay. صح waxaan ka cararayay buu yidhi islaanteedaan aqaano waa islan mana sheegasho badan. طبعا صح hadhowta markaan isqabano aniga dharka ugaday leedahay haddaan suuqa kusoo aado dharkeeda صح iyo maryaha ii keenta. صح gabdhaha marka mana sheegashada badan manaana. midda saddexaad waa xadaaqa mid aragti dheer shayga aragtaba ku dhageyda. xadaaqa war inaad garateen manaydan u malaynaya ku socay midda saddexaad waa xadaaqa mid shayga aragtaba isha la raacayda. xadaaqa yani inaad fahanteen baan u malaynaya iyadana waxaa loola jeedaa صح gabadha isha dheer iltaag baa loola jeedaa. iltaag wax walba oo banaankaas ilaahay maraya oo ay aragto in ay tiraahda dharka nimanka aan ku labisto jaakadaha iyo haddii alla ku runaya baa usoo harta kaliya iyadoo wadata isku dhar hadda qaaliyaho ninkeeda oo inta ka ciyaaray uga soo bixiyey qiimaha ugu qaalisan ee magaalada dharka yaalla kuwa ugu muunadsan hadday aragto dirac xun oo milif oo gabar ay wadato deriska waa uga dhegeysaa lagama furi kara habeenkaa ninkeedu ka gam ima karo hadba waxay leedahay aniga ima rabtay taa ii gadi maysid islaantaan dhar ay wadato meesha ay ka keentaan fahmi waay صح wixii aysan haysan maan hadba waxa kalaa la fiican طبعا guriga la dejiye maan kan kalaa la fiican هذه jiifka u yaal maana kan kalaa la fiican wax walba saas iltaag baa la yidhaaho waxa adduunyada yaal oo dhan kuma filnaa lagu yidhi xadaaqaa la yidhaha inaad fahamta isku day. midda afaraad waa shadaaqa waa midda hadalka badan. igu kaadi shadaaqa marka laga hadlayo gabadha iyada haddii aan la qeexi tago istacajab baad u go-eysaa. waxaa lagu yidhi waa gabar hadal badan daldalan badan tooraha go-an wey macnuhu waxa weeye warkeedu teemba iyo bareeg male iska daldalaysaa. gabdhuhu ha naga raalli ahaadaan waxa aan tilmaamayna ma ahan gabdhaha oo dhan ma aha kuwa ciladaha le wey iyagana ku ceebeyn mayno heble malihine waxaan oola jeednaa inay soo wanaagsanaadaan. صح hadalka hanqarka oo madax xanuunka ninkeeda hadalka gugaca oo qalabada jebinaya oo maaragtay aan xigmada lahayn oo madax xanuunka ninka uu ka qaadayo iyo iska daba wareega gabadha tiraahda shadaaqa leedahay hadalka tirada badan oo aan macnaha lahayn oo aan kala joogsiga lahayn oo shalaad tiri haddaad tiriyo asaxda cabaar aan gam ma leh hadalka laga siinayo abagarata ma fiicna gabdhuhu iska ilaaliyana ka digtoonaadeen abu ay sheekh ku soo. midda shanaad waa baraaqa waa midda isqurxinta badan muuqaalkeeda iyo jirkeeda ku mashquulsan mar walbaba
dadku ha ku arkaan, dadku ha kaa sheekeeyaan, quruxdaada ha ka sheekeeyaan. gabadha meeshii laga rabay inay kasoo dhalaasho kaalin hooyanimo, caruur xanaanayso, nin iyo reer dhaqda gabadha la rabay nafteedii ku mashquulsan, saa kobadiinka u taagan oo iyada kaliya isla cajabsan oo isferferinaysa, isdhayayda oo isdhaqayda oo iyadu kaliya lafaheeda ka badila baa lagu yidhi. gabadha iskuma kalsoona dee way macnuu iskuma kalsoona. midda lixaad waa xanaana, waa midda ololka badan. Yani midda ololka badan markasta waxay u ololeydaa nin aan qabin, ama nin hore ha ahaado, ama dabcan tana ugu daran bal u fiirso ya nin aan qabin oo iyada nin waa qabaa, nin kale ama ha dhinto ama ha noolaado. Yani waxaa laga yaabaa inuu yahay fanaan hebel af ay jecesha taageerto, yani waxaan ku tilmaama walahi ya fanaan hebel haddaan heli lahay ninkaas murqaha weyn hebel. Okay, yani oo kan qabana muxuu yahay? yani kan kolley waa uma jeedo uma jeedo daaha gadaashiisa waay. waa halkii ugu dambeysay, meeshii ugu dambeysay wey dee wixii aan sharaxi jiro o dhan waa been. aad iyo aad been wey meeshii ugu dambeysay. naag nin qabo oo anigu weligay nin kale calmanaysaa waa taageeraa, nin murqo weyn waaye, nin cayaarto kolba haddaad aragta naag sidaan le ee telefoon ka nin qabo nin kale telefoon ka fiirsanaysaa ee masawirkiisa hadbale marna soo weyneynaysa marna yaraynaysaa. sax laga yaabo inuu dhintay, inuu dhintay laga yaaba. waa lacad waay. ka sax midda toddobaad u dambeyda waa qayaara, yani masayrka badan waalida oo xaggaa ka timid, xaggaa ku socotay, yani maxaa kaasoo kale, yani masayrka waalida dumarka qaba qayaara. masayrku hadda waa cudur. Okay, masayrku sidiisa waa cudur uuna jiraa. mid yar oo xubiyaha jiro marka la iska daaya ma dhihi karna masayr. Okay, hala yareeyo almeeno, hala yareeyo. Okay, midka waalida oo xad dhaafka macnaha kaas way midka oo laga hadlaa oo tilmaanta xun ah mar walbaba, oo waxba hubsashada lahayn, laga yaabo inuu qoyskii burburiyo oo isku diro dadkii. kaas way abaan mid hanfadnimahaba jiraba oo haddii aan caadiba ahaynba oo lagaba yaababa inay diya 100 ku gasho. aad iyo aad u jira. muuqaalka waxaan uga hadli doonaa 7 tilmaamood oo sheekhu uu noo sheegi doono, Allah barakeeye, oo nin xakiim ah laga wariyay. 7 tilmaamood waa 7 tilmaamood ee gabdhaha leh laga digo, weligooda laga digi jira. dee carab baa ka digaysa. waa meeqa sano ka hor gabadhii markay yeelata waxaan ka rabnaa inay fadhigeeda ku hubsato iyadoon qofna soo weydiin, teleefonna soo dirin oon dhihin war ma aniga mase aniga ciladaha, fadhigeeda ha ku hubsato inay tahay tan ugu liidata gabdha. aad iyo aad. 7 marka maxay kala yihiin sheekhaan noo sheegi doona. 7 tilmaamood oo aadka loo caayay waa midda ugu horeyda waa annaana. waa midda aninka iyo taha badan. midda labaadna waa mannaana, waa midda mana sheegashada badan. midda saddexaadna waa baraaqa, waa midda isqurxinta badan. midda afaraadna waa shadaaqa, dabcan midda hadalka badan. midda shanaadna waa xadaaqa, midda iltaagidda badan, yani waxay aragtaa isha ku taagayda oo inay lahaato iyadoo rabta. midda toddobaad oo u dambeydana waa xanaana, midda ololka badan, nin aan qabin laga yaabo inuu dhintay u ololeyda mar walba inay heshay rabtaa. dabcan kan qabo ma ogaba daagaashiisa. si shaargaraya muuqaalka oo meel fog gaarsiiyo haddii aad ka hesheen xigmadoodii soo jiitay maalin basaas aad ku keenayaa nin xigmad iyo sheekh ay ka da'isay khayr Allah si kala tuura muuqaalka aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ciao ciao.